haddii aad ku cusub tahay janaalkeena Taqwa Tube subscribe saar dambalelka riix si aad u noqoto daawadaha koowaad. mahadsanid, jazaakallahu khayran. waalidka iyo carruurta isla isfiran waayaan. waalidku nolosha uu soo noolaa tajaarib buu hayaa, aqoon buu hayaa, diin buu hayaa, dhaqan buu hayaa. siduu ugu gudbinayaa ilmihiisa haddii aanay isfahmaynin? afku wax weyn maaha barashadiisu. ilaahay baa maskaxdeenna ku rakibay sida loo barto. waxaa lay sheegayay gabadh Soomaaliyeed oo nin Maraykani qabo oo carruur badan u dhashay oo dhammaantood af Soomaaliga ku hadla. waxaan ku idhi say u dhacday. waxay dhahdeen hooyadoodunbaa waxay go'aansatay inaanay u jawaabin haddii uu af Soomaali wax ku weydiin waayo. waa ilmo nin Maraykani dhalay, laakiin hooyada Soomaaliyeed waxay ku dadaashay inay ilmaheeda iyadu ma af Ingiriisi laha, waa gabadh aqoon oo wax baratay, laakiin waxay rabtaa luqadeeda inay barto. dabeetana ilmaheedii yaraa waxay ku bilowday iyadu inay af Soomaali kula hadasho, aabbahoodna af Ingiriisi kula hadlaa. ilmaha yar isagoo bilingual buu joogaa, aabbihiina af Ingiriisi kula hadlaya, hooyadiina af Soomaali kula hadlaya. intaasoo carruuray dhashay dhammaantood af Soomaali ku hadlaya. hadday af kale wax ku weydiiyaan way u dhagoolaysaa, un lama hadasho. aniga maaha un bay leedahay qofka lala hadlaya. dabeetana wuxuu ilmuhu ku qasbanaaday si hooyada xidhiidh ula sameeya inuu ku hadlo maxay iyagoo yar. waxaa kaloo arkay tajribo uu sameeyey nin carbeed oo aqoon-yahana. ilmahii uu dhalay ayuu xaaskiisa wuxuu ku yidhi, adigu lahjadda kula hadal. inay labnaaniyiin baan u malaynayaa, lahjadoodan maxalliga ah adigu kula hadal buu yidhi, aniguna fusxadun baan kula hadlayaa. ilmihiisa isagu fusxada qudhu kula hadlaa, islaantuna lahjadday kula hadashaa. ilmihii 3 jir markuu marayo fusxada iyo lahjadaba si fiican buu yaqaanaa. aabbihii markuu la hadlayo luqa alcarabiya alfusxa taa qur-aanku ku qorayuu ku hadlayaa. hooyadii markuu la hadlayana af carabigan jajabane suuqa lagaga hadlayo. odaygaa wuxuu leeyahay lecture buu ka jeedinaya oo kaga warramayo. waxyaabaha qariibka ee aan arkay wax ka mida buu yidhi, hooyadii baa odhanaysaa aabbaha waxayo waxaa ku dheh, iyada lahjad bay ugu sheegaysaa. markiiba intuu tarjumo aniga fusxadunbuu igu sheegayaa buu leeyahy, waayo aabbaha fusxadunbaa marta, waxa kaloo lagula hadlaa ma jirto. luqa alcarabiya alfusxa buu ku hadlaya. waxaa dhib nagu noqotay unbuu yidhi, maadaama aanu 2 nin nahay, luqada carbeedna dhadig iyo rag ay leedahay, maanan haysan buu leeyahay dee luqadii qaybteedii dhadigga ka warramaysay cidaan ku wada. markii dambe ilaahay siiyey buu yidhi, markuu kan 3 jir maraya mawluud kalaan helay oo yar oo inana. negotiationkii inantii baa iyana wararkii ka soo qayb gashay. 3dayaduba fusxadaan ku wada hadallaa buu leeyahy. waxaan uga dan leeyahay ilmuhu intuu yariyey haddaad ku tijaabiso afkaas, dhegtiisana uu ku dhaco, guriga marka la hadlayana uu afkaa maqlo. waayo ilmuhu markuu yariyey ee koowaad afka wuu urursadaa wixii dhegtiisu, waayo noloshoo dhan muxaakaa buu ku bartaa, isku day. noloshoo dhan isku day buu ku bartaa. marka hore wuu ururiyaa, dabeetana waxaa bilaabantay inuu afka fahmo. keen baad leedahay wuu keenayaa, hoobaad leedahay, laakiin isagu ma odhan karo, waayo weli makhaarijtii ma helin, makhaarijulxuruuf halka ka soo baxaysay. tijaabuu bilaabaa markaa inuu xarafka meeshii laga soo saari lahaa yidhaahdo. si qaldan buu ku dhawaaqaa inta hore o dhan. carruurtu erayadii oo qaldan oo aan si sax ahayn inta hore hooyadoodunba afgarata oo tidhaahdaa waxaasuu rabaa, saasuu ku leeyahy, waayo makhrajku si qaldan ugu dhawaaqaya. laakiin tajribaduu wadaa. muddo markuu tijaabada wado, marka dambe eraygii oo dhammaystiran oo saxu soo tuuraa. inta hore ilaa 200 oo eray buu bartaa, intaasuu isku celceliyaa. ilaa 4 jir markuu soo gaadho wuxuu tiradu way sii badataa, ilaa 700 eray waxbay soo gaadhaa. 5 jir 6 jir markuu gaadhana waxaa laga yaabaa luqada inteedii ugu badnayd inuu hayo. idan waalidku halkaad adigu af Sawaaxili jajaban kula hadli lahayd, af Soomaali fasiixa kula hadal, isagaa baranayee. innagu markaynu hadlayna Sawaaxili jajaban baa ku hadashaan soo maaha. marka intaad Sawaaxili jajaban kula hadli lahayd, aduu af Soomaali saxa kula hadal. isaguna wuxuu baranayaa maxay af Soomaaliga saxa.
هكا ورورين سواحل يرى بريتو كولا عياري عرورتها أبو خبرانيا كوان دبدا وكولا عياري ما يسكول كماركو تقما كان بريتو سجرا وبرانيا لكن تيسا كله وإنه السوغا انتو غوريغا جوغو تانو ميل لبا وبخيني غوريغا جوغو وإنه أفكيسو هويو سوغي كرا أفكونا دوا حديدك والدكو وحوغو شيغي كربا ilmuhu dhalay afkala kuma sheegi karti kiinaba afkala ku gudan kara wuxuu rabay oo dhan hindida way yiraahdeen afku urdugu kama lumo India marka la joogo waa meel diima badan oo afaf badan kuma af lagu hadlo kuma diimood yaaliin sadaradeed qofku markuu wadankiisa joogay buu feejigaayo soo jeeday markuu India joogay buu wuxuu qabay dagaal afeed iyo diimeedba dabeetana wuxuu ahaa qof feejigoo soo jeeda bilcagsi inagu markaynu Soomaali nahay afka kamaynan fakari jirinoo dadkoo dhammi af qurun buu ku hadli jiray diinta kamaynan fakari jirinoo dadkoo dhammi diin quru wada haystay oo ilmaha macallin quraanka iyo iskuulka kuwa jooga iyo kuwaasaa diinta u dhigayay aabbuhu diinba uma sheegi jirin markaynu halkan nimi xagga markaynu joognay markaa aabbuhu wuxuu ka adkaa inuu ilmahaasi aanu gaajoore wuxuu cunay inuu guriga keeno hooyaduna waxay ka adkayd inay u kariso oo nadiifiso oo dharka u maydho oo hagaajiso intan ama wixii af iyo waxbarasho iyo bulshado dhanba wadaagay meelahan markaynu nimina sidii baynu inagu u fakarnaa adayguna bariskiiba ku maqan yahay salaantuna way karinaysaa oo yaa baraya kan markaa afka iyo diinta iyo dhaqanka iyo hidaayaa baraya laakiin ninka hindigii markuu halkaa joogayna isagaa diintiisa ilaashanayay oo afkiisa ilaashanayay oo dhaqankiisa ilaashanayay oo waayo jaarkiisa af kale iyo diin kale haystay saadaradeed uu ka ilaashanayay iskuul gaara buu lahaa af gaara buu lahaa dhaqan gaara buu lahaa dad gaar u ahaa oo dad kale la degan halkan markuu yimina isagu waa sidiisii waa ninkii ilaashanayay afkiisa iyo diintiisa laakiin adigu waxaad tidhi xayalla dee uun dadka ha ka mid noqdo dee maahmaaheenana qaar qalloocan baaba iskaga jirayoo meel lagu ilaayay haddaad tagtay ishaa la iska ridaayo carradaad tagtaa camalkeed la yeeshaayo mala hadda inaynu dadka ku daransanno anigu waxaan is leeyahay dadkaba kamaynan yaraaneene ummadahaynu biirinayni